anoo ka imid Mozambique Afriqiya waxaan ku nimid 4 baabuur 7 saac ilaa 8 saacadood baan soo soconay waxaan ka imid magaalada Tromso ee Norge waxaan ahay ilaa 22 Tromso waxaan soo raacay diyaarad baan soo raacay Tromso meel fog weeyaan baabuurku waxa weeyaan in badan uu soo soconay 22 saacadood uu soo soconaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله معتمرك waxaan aragnaa muctamar aad iyo aad u wanaagsan si fiican loo qaban qaabiyay jazakallahu khayr dadka soo qaban qaabiyay iyo culimada ilaahay waxaan idinka baryaynaa dambi dhaaf aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anoo ka imid Mozambique Afriqiya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dacwada iyo khayrka ka socda aad baan ugu mahadcelinahay aad baan ugu faraxsanahay habsimida u socda wanaaga sharafta ilaahay waxaan idinka baryaynaa dambi dhaaf annagana ilaahay ku camal fala Allah naga dhigo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mawlid Aadan Sahal waxaan ka imid magaalada Tromso ee Norge alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan ka soo qayb galay mu'tamarka waxaanan ku sugnaa muddo 3 cisho waxaan kala kulmay khayr fara badan ilaahay baana mahad iska leh waxaan rajeynayaa intii loo duceeyay iyo intii axaadiista socoteenba inuu ilaahay naga waafajiyo culimadana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu kordhiyo annagana ilaahay waxaan ka rajeynayaa khayr fara badan iyo xasanaadkii aan soo doonanay inuu ilaahay nagala kulmiyo Tromso waxaan soo raacay diyaarad baan soo raacay Tromso meel fog weeyaan baabuurku waxa weeyaan in badan uu soo soconay 22 saacadood uu soo soconaya laakiin ma laha baabuur toosaya Trenton diyaarad bas saacad cirkaayo diyaarada soo raacaysa hal saacad bas soo soconaysa wallahi alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ka faa'iiday qulubta ay qoyday waxaan dareemay culimo fara badan oo aanan weligeed la kulmin baan la kulmay alashaan aad iyo aad baan ugu farxay inaan culimada la kulmo oo alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan rajeynayaa inaan halkan la kulmayo culimadaydii oo aan baranayo diintaydii islaamka qulubtaydana waan qoynaya maadaama aan joogno dhul waxa weeyaan aan muslim ahayn waxaan rajeynayaa qulubtu noo qoydo aniga intii walaalaha ay ka soo qayb galayba meelo fara badan baa laga yimi waxaan la kulmay dad fara badan oo aan walaalanahay oo meelo fara badan ka yimi culimo fara badan baan isku baranay alxamdulilaahi rabbil caalamiin raxmatullaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay mu'tamarka Oslo oo muddo 4 maalin halkan ka socday waxa way dad badan baana ka soo qayb galay run ahaantii iyo culimo aad u badan marka waxaan leenahay ilaahay ka warmaartay miisaanka xasanaadaha ilaahay ha u saaro annagana ilaahay dambi dhaaf nooga dhigo iyo ajr wanaagsan ba Allah naga siiyo magacayguna waa Asad Xaaji
ما شاء الله نمبر آد ضد بدنا يميت ونكسين هاي وعرين ونكسين سند والبوا اللي قبته بالك لك سند والبابا إنسان لقوة ويلي بسند كم مركب بدنا اللي قبته كسكو ضد كعلم ماشى ككرسنا كسكو بولش مالك وضع تيمدا الصومالي وضع إني ماركتي أي wada xiriirto oo sheekaysato ay kulanto arrimahooda ay ka wada hadlaan marka bawsaha lagu jiro kaleeto waa arrin aad u fiican marka carruurtu waqti halkaas lagu ciyaarsiinaya ay laftirkooda intay dururka soo ordi lahaayeen barnaamij oo habaysan in loo sameeyo meeshaas ay ku ciyaaraan wax wanaagsan ayada laftirkeeda marka waxaan dhihi lahaa khayr Allah ka sii dadkii soo abaabulay sanadkii mar ka badan in la sameeyo laakiin wanaagsan ما شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المؤتمر كسيف عم بقول عي وما أنت قدام بيسي جبدي ما أنت دامرنا حلقي ندوين كسؤالها إجابتي فرناين ما شاء الله كسيف عم بقول عي أدبا وفرح سنة بإذن الله الباري إيو فرصة التي في مارت عالمي نسي نحر وبسيتك وحنا لنا أدبا وما سيدنا جزاكم الله خير الجزاء ما شاء الله أدبا وما سنتهاي وحن كن نمد أفر بابور waxaan inoo hogaaminayay imaamkii masaajidka iyo guddigii sheekh abshir iyo sheekh bashiir tahliil insha Allah dadkana waxay ku yimaadeen abaabul loo sameeyay muxaadarooyin in ay ka qayb galaan dacwada iyo masha tawfiiq uu bixinayo daruustan ajar Allah ka siiyo dadku waa badnaayeen waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan baa ka faa'iidnay dacwada culimadii safarka ka timid oo inta qaaradaha ka yimid ayagana waa ka faa'iideysanay oo ducaynayna ajar Allah siiyo ragga duubayana ayaa insha Allah dacwada gaarsiinayna ilaahay amaal ha ka siiyo ajar ha ka siiyo waayo dadka halkan fadhiya hadii warsi gaarsiinaysa lahaan lahayn waxa ka dhacay qaaradaha lagama ogaadeen marka insha Allah moolda aniga ku hadlaya odayaasha moolda kamida waxaan u mahad celinayaa masjid tawfiiq iyo guddiga wax duubaya insha Allah oo kaamirooyinka wata habeen iyo maalin u taagan ummadda waxaan joognay 4 maalmood ayaan joognay waxaan u soo soconay 7 saac ilaa 8 saacadood baan u soo soconay waxaan ahay ilaa dhowr iyo 22 baawur baa wadanay baawur yar shan baa wadanay baaburteena ayaan soo qaadanay masaajidkan siiyay meel aan seexano iyo guryaba oo qaas magaalada seexanayeen dadka waaweyn qaarna waxay seexanayeen masaajidka ما شاء الله مساجد كان سيرفيس في عم بنو سميي قاربة حتى بابور تقدت ولا سوق هذا ضد بدن باسكو يمد يتبوري كي مادين دن مركبة كي مادين ما شاء الله خير كواب بدنا ومضوا ما شاء الله وفرح حسينين قلبي جاني الهي واسكو دوبي فرحت بنا جم مقطع دعوة أبسل مقعي سمير محمد عادن وحنكون والله هاي أوسلو المؤتمر كان هو مؤتمر يا أبو بركة سنبوها الحمد لله ما أنت وحنا قصو قبو بي فرحد يتشوي دقن وحينو أهيد رنتي دمان انت النواحي كان كنا الصومالي دا أوسلو أما قدهان قارد يوروب وحينو أهيد فرحد يبرواقو وقلبي يدا يو قلوب تيدا أيا وحا نو نقطي كواسير اسمه الحمد لله عرورته iyo asxaabta iyo Soomaalidii guud ahaan isugu timid meesha waxay kala kulantay nimco aad weyn waxaanu ka faa'iidnay runtii iimaankayaga iyo soo kobcay barasho iyo dad cusub iyo wajiyo badan oo aan isku baranay iyo guud ahaan marka la eego khibradaanu ka qaadanay isu imaatin kale isu yimi marka alxamdulillah aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo وأنا رجينا يعني إن شاء الله سنة ذا الدنبة أنا قريب قادم دورنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ورا الليال ما أنت وحن كل سنة هاي مؤتمر كي مركز كتوفيق إسلاميك سنتر مؤتمر كي وينا كدعي أوسلو ماشان هذا أركتانا ومكتبة المساعدة كتوفيق اللي هو يبني كتبتي ديني جاها كتبتي كلابا marka dad badan ayaa ka soo qayb galay runtii mu'tamarka doonayna runtii in ay ka soo qayb galaan muxaadarooyinkaas khayrka badan dadkaas oo markii nooga yimid Scandinavia oo dhan sida Danishka Sweden Norway Ingiriiska ma sha Allah anagana marka waxaan iibinaynaa kutub diini baan iibinaynaa kutubtiina ma sha Allah si fiican bay u socdaan oo si fiican baa loo iibsanayaa
marka waxay iskugu jiraan kutub fiqi ah, kutub diini ah, kutub barbaarinta carruurta, tarbiyada carruurta, kuwa ingilish ah, kuwa norwejiyan ah, wax badan baa iskugu jiro. runtiina waa farxad weyn bay noo tahay waqtiyada noocan oo kale ee seminaarka ah ee diiniga dadka iskugu imaanayaan inay ka faa'iidaystaan diiniyan akhlaaqiyan. magacaygana waa maxamed cabdulqaadir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للناس أجمعين نبي الهدى وإمام المتقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. meeshan waxaan ku haynaa buugaagtii afka Soomaaliga laga bilaabo ilaa dugsiga sare ilaa maxay ahayd dugsiga hoose. waa madbacadda iftiinka aqoonta saldhigeedu yahay Sweden. aniguna waxaan ahay wakiil ayaan ka ahay madbacadda iftiinka aqoonta. waxaanan ahay wakiilka Somali Ben dalka Norway. meesha sida arkaysaan waxaan ku soo bandhignay wax kasta ee maaragtay ama ha ahaato taariikh ama ha ahaato suugaan ama ha ahaato maaragtay maadooyinkii waxbarashada ee dugsiyada. waxaan dhihi karaa maaragtay intii arday u baahnaa way ku yar yihiin maaragtay wax meesha maanta ka maqan. maalintii labaad ee mu'tamarka ayaa nimid. mu'tamar kastana waan ka soo qayb galnaa. madbacaddeena iftiinka aqoonta waxay ka timi xagga Sweden ayaa laga keenaa buugaagta. marka Soomaaliduna si wanaagsan ayay u soo dhaweeyaan, aad iyo aad ayay u xiiseeyaan. waa maaragtay in buugaagta qaadanayso iyo maaragtay in fiirinaysa iyo maaragtay in tixraaca dambe meel ay u laabtaan maxay ahaydey warsanaysa. intuba way iskugu jiraan. marka waa fursad aad iyo aad qaali ah aan uga faa'iidaysanay. marka guddiga noo soo abaabulay munaasabadahan oo kalena aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa. waxaan dhihi karaa maaragtay waa meel maaragtay ama diin iyo aqoon iyo guubaaba iyo maaragtay iyo isweydaarsi dhaqan dhaqaale Soomaalida dhexdeeda ah oo ka dhaco. aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay ma sha Allah. waxa meeshan aan ku hayno dhan waa af Soomaali. waa af Soomaali saafi ah. buugaagta qaarkood waxaa laga dhigaa dugsiyada ilaa fasalka koowaad ilaa fasalka sare ayaa laga dhigaa ilaa waxaan dhihi lahaa fasalka 12aad. Sweden ayaa laga adeegsadaa mushmo laarir waxaa la yiraahdo afka hooyo. waa maaragtay buugaagta inta badan loo adeegsado gaar ahaan dalka Sweden. sidoo kale maxay ahaydey maaha kuma koobna iskuulaadka iyo bandhigyadaan oo kale kuma koobna. buugaagteenu waxa ay yaalaan madbacadaha dalka Norwayna waa laga helaa, maktabadaha waa laga helaa. bismillaah anigoo magacaygu yahay Siciid. wuxuu ahaa mu'tamar aad loo soo agaasimay heer degmo ilaa heer qaran. bulsho aad u fara badan baa ka soo qayb gashay. jaaliyaduhu wax iskaga kala yimaadeen Scandinavian-ka oo dhan ilaa Sweden ilaa Denmark. waddanka Norway gobollada xitaa ka yimaadeen. waxaan odhan karaa waa arrin aad iyo aad noo farxad gelisay. waxaan ka faa'iidnay muxaadarooyin aad iyo aad u qiimo badan oo dhinacyo badan taabanaya akhlaaqda, midnimada, isku duubnaanta iyo alla ka cabsashada. waxaan leeyahay kolley waa la hayaa muxaadarooyinkii oo duuban marka in laga faa'iidaysto dhammaan Soomaalidu meel kasta ay joogto. marka hore waxaan aad ugu mahadnaqaynaa wargeyska sida sharafta leh noo soo casuumay inaan ka hadalno. marka labaad waxaan aad ugu mahad celinaynaa dhammaan bulshooyintii ka soo qayb gashay soona abaabushay barnaamijkan aadka u qiimaha badan leh. khaasatan waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan culimmadii ka soo qayb gashay mu'tamarka aadka u qiimaha badan ee dhammaan bulshooyintii ka soo qayb gashay ay sida wanaagsan uga qayb qaadateen, u fahmeen xuliin iyo maxaan ku idhaahdaaye macluumaad iyo cilmi dheeriyana ay ka heleen. xaqiiqatan wuxuu ahaa mu'tamar aad u qiimo badan. bulshooyinta ku dhaqan waddankan aan joogno u sii faa'iideeyey sidii ay waddanka ula qabsan lahaayeen, cilmiga sida diiniga iyo maadigana ay maaragtay uga dhismi lahaayeen, aqoontooda iyo garaadkoodana kor looga sii qaadi lahaa. waxyaabaan ka faa'iidnay wuxuu ahaa mu'tamarkan
in aan maad aragtay quluubtannada ka dhigno mid ku xidhan maxaanku idhahdaa jidkii ilaahay noo banneeyey iimaankoodana uu u sii xoogaysto si ay u fahmaan waxyaabaha looga baahan yahay ee maad aragtay akhriya adduunkoodaba wanaag u leh dhab ahaantii wuxuu ahaa muctamar aan odhan karo wuxuu noo suurtogeliyey in aan cusboonaysanno iimaankanaga korna noogu qaaday sidii aan cibaadadannada u sii xoojin lahayn aakhiradannada iyo adduunkanagana aan maad aragtay kor ugu sii qaadi lahayn marka wuxuu ahaa muctamar aad u qiimo badan aad u fiican aad barnaamijyadiisa iyo mawduuciisa u wanaagsanaayeen aad baanan idinkan idiin salaamaynaa aad baad u mahadsantihin bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan fadhinaa mutamarkii 15aad ee uu noo diyaariyey masaajidka tawfiiq waxaanu joognaa hoolka la yidhaahdo xashla iskuula runtiina waan ku faraxsanahay masaajidka tawfiiq sanad kasta mutamarkan oo kale ayuu noo diyaariyaa culamaa udiinka Soomaaliyeed ayuu wadamada meel kasta ka keenaa aad baan uga mahad celinaynaa runtiina aad baan uga faa'iideysanay anuguna saakay runtii qofkii ugu horeeyay imid baan ahay 10 saac subaxnimo imid meeshan ayaan maaragtay annaga laftirkeena reer xanaan haddaan nahay waxaan ku soo bandhignay waxqabadkii xanaano runtii waxyaalo badan bay qabatay marka broshurooyin badan baan diyaarinay oo ay ka mid yihiin kuwan dadweynaha Soomaaliyeed oo halkan isugu yimid broshurooyinkan baan u diyaarinay macluumaadkii oo kooban ayaa maaragtay ku qoran dhinacan kalena haddaan u rogo waxa way waa waraaq yar oo isku laamaysa wixii oo kooban baa ku soo qoran marka halka hadda aragtiin waxa way waa abaarihii u dambeeyay lacagtii la qabtana wataas halkaas ay ku xusan tahay runtii bulshada Soomaaliyeed iyo reer xanaanaba farxad weyn bay u tahay arintaas quruxda badan oo guusha la qabtay halkan waxa ka arkaysiin sakaatul fitriga oo runtii sanad kasta aan gaarsiino bulshada Soomaaliyeed dhibaataysan haday tahay aqoon iyo haday tahay dad naafa iyo dhammaan inta sababka ah oo dhan marka waxaan u soo jeedinaa bulshada Soomaaliyeed inay nagu gacan siiyaan sakaatul fitriga si aan u gaarsiino dadka u baahan aad baan maaragtay u salaamahayaa nuxur meediye